Warar ka imanaya magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in deegaanka hoos yimaada magaaladaasi lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi. Ganacsadahan Soomaaliyeed ee lagu dilay dalkaasi ayaa lagu magacaabi jiray Mahad Dheere, waxaana dilkaasi geystay koox burcad ah oo hubaysnaa, kuwaas oo ku dhex dilay goobtiisa ganacsiga oo ku taala degmada Malmaluudi oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Pretoria. Burcadda geystay dilka muwaadinka Soomaaliyeed ayaa si degdeg ah goobta uga baxsaday, waxaana daqiiqado kadib goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan booliska dalka Koonfur Afrika oo baaritaan ka sameeyay goobta lagu dilay marxuum Mahad. Walow aysan jirin cid u soo qabtay dilka muwaadinka Soomaaliyeed. Koonfur Afrika waxaa inta badan ka dhaca dilal dhaca iyo boob loo geysto ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi, iyadoo dowladda Koonfur Afrika ay mar walba sheegtay inay wax ka qabanayso dhibaatada iyo haddana waa mid aan mar walba aan soo naasacadayn.